وهاجاك داوديال مركنا وحن لا joogaa abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Soomaaliyeed mudan maareeyo ku soo dhaw warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa ku sugan tahay dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo ay ka socoto munaasabada soo dhaweynta markabka Turkiga ee baar lahaa shidaalka Soomaaliya sidee xaalku yahay maanta ما شاء الله اللي ما لو عدوا ما سنتهي ما أنت حالك سيده ويا سلة المامي كرو يا سلة سفاي كرو يا سي سومالي وسو عرقتي معهن إن شاء الله مرلو وحن كمين نقولنا ودمada shidaalka soo saara ee barwaaqada ee loo tahriibo ee loo shaqaatago ee hadii alla guriyo ummadeena ay dibka badan kala kulmeen marluu dalkeena ayaa loo soo tahriibi doona loo soo shaqatagi doona marka waxaan rajaynayaa liibaano dad badan inaad ka fiilka noqon doonto oo hadii alla guriyo yahay laakiin aad u la dhaqanto si wanaagsan sida dadkeena loola dhaqmo si aan ahayn marka waxaan leeyahay Soomaali weynay dhaacad walaaciyo والولي دباتيو والبهار وجوكتود سلع ويشنيسه هدي هذا والله وانا كوما لابنه وقتي كنا فيه وحكو هذا وياه abwaan halkan maanta waxa ku dhan kooxdii gobolada qaranka Soomaaliyeed ee waa bari oo markaas aad hogaamiye u tahay xafladda halkan ka socota sidee tahay xaflad cajiiba xaflad qurux badan xaflad u qalanta hadii alla ku rooyaa hawsha lagu soo bandhigayo hadii alla ku rooyay madaxdii Soomaaliya oo dhan madaxweynuhu ugu horeeyo hadii alla ku rooyay joogan marka wax la qiyaasi karo maahan laakiin maanta waa maalin weyn oo taariikhda gali doonta oo la xasuusan doono oo jiilasha maanta hadii alla ku rooyay jiilka dhalinyarada waliba ay adigu aad ka mid tahay ay mahadi doonaan marka waxaan leeyahay abaal ruuxi ku gala hadii aad gudi karin waa inaad u garatood gees kasta ka sheegtaa madaxweynaha Soomaaliya abaalku ummadan u galay laba koobi karo ka dawladda Turkiga ay u gashay laba koobi karo laakiin waa la sheegi doona maanta maxaad ku soo bandhigi doontaan ka waa bari ahaan halka waa bari wax badan ay ku soo bandhigi doontaan markaan oo kale burhaantooda kacsan marka burhaantooda soo bandhigi doonaan laakiin aanu waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu duceynayaa allow rajadaan loo rumay rafaadkii aan ka raysanne allow rajadaan loo rumay rafaadkii aan ka raysanne waa ma santaliba aad iyo aad ma santahay wuxuu ahaa abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure gudoomiyaha aan dhahay maareeyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ama golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka aad ma santahay